الله أكبر allaha u naxariista waxaa maanta magaalada Boorama asqaran loogu sameeyay marxuum ganacsade Xaaji Abiib Jibriil Nuur oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada Boorama kaas oo ka soo qayb qaatay dib u dhiskii dalka ayaa aaskan qaran ee marxuumka maanta gudaha magaalada Boorama loogu sameeyay waxa ka soo qayb galay wasiiro agaasimayaal wasiiro hore xildhibaanada golayaasha wakiilada deegaanka iyo guurtida iyo sidoo kale odayaal dhaqameed maamulka gobolka Kendegmada iyo mas'uuliyiin kala duwan iyagoona alla uga bariyay inuu samiriyay iman ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu marxuumku ka baxay alla uga bariyay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo Xaaji Abiib Jibriil Nuur oo runtii maanta aan joogna aaskiisii waxa runtii ragii magaca weyn iyo kulaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa ragii go'aansaday in Soomaaliland runtii way maal gashado hantidiisa inta u badan ku bixiyay sidoo qarankani u taabagelaa ilaahay baan naxariis uga baryayna maanta inagu aynu u ducayno jinaasada ku tukatay wada kaysaan intay leegto ilaahay baynu u baryaynaa in ilaahay u dambi dhaafo innakana samiriyay baan ilaahay inuu naga siiyo horumarkana qof ku suntan buu ahaa waxa weeyaan waa waslad miisaan la ayay naga baxday bedelkeedii Allah ina siiyo ehelkii iyo caruurtii iyo qaraabada ka baxayna samiriyayaan Allah ka siiyo dhamaanteena samiriyayaan Allah inaga siiyo maanta waxaanu joognaa aaskii ilaahay ha u naxariistay marxuum Abiib Jibriil Nuur ilaahay baanu isaga u baryeynaa intii waajib naga saarnaa baynu gudanaynaa inaynu maydno inaynu ku tukanno inaynu kafarno inaynu aasno waxaynu ugu daranaa ilaahay u weydiinna ilaahay u naxariiso taasibaanu direynaa intii ka hadhay iyo eheladiisina ilaahay samiriyay ka siiyo isna meel fiican ilaahay la xidhiidhiyo wuxuu ku ugu oran jiray markaanu yarayn war wadankeena aan soo shaqaysano wax ka qabanno war wadankeena aan soo shaqaysano wax ka qabsano oran jiray ilaahayna uu la qabto oo uu soo shaqeeyay waxna uu ka qabto magac buu ku yeeshay dhismo fiicanna uu ka dhisay wax badan oo sadaqa tijaariyana uu qabtay ilaahay waxaan uga baryayaa ama aan uga baryaynaa inuu ilaahay intaasi ku abaal mariyo ergada inta leeg ee u ducaynaysan in ilaahay naxariistii janno ku siiyo qabriga ugu nuuro Abiib Allah u naxariistii janno Allah ka waraabiyo waxa ku filan intaasoo muslimiina oo Soomaaliland oo dhan iskaga timiday oo kala hayb duwan ayaa waxay iskugu yimaadeen hadii alla ku rooyay ka soo qayb galkiisa waxa uu ahaa adoon samatalisa ayuu ahaa marxuumka aanu aaskiisa joogno waxaan ilaahay uga baryanaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii qoyskii iyo ummadda uu ka tagayna samir iyo iman Allah ka siiyo gaar ahaan Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Awdal nin samafal ahaa nin wax la baxa ahaa nin horumarka jecel ahaa nin ummadda ururiya ahaa Abiib Jibriil Nuur ilaahay naxariistii janno siiyo waxaan ummadda reer Soomaaliland uga tacseedaynaa iyo ehelkiisii iyo intii garanaysaba Abiib Jibriil Nuur oo maanta halkan aanu ku aasnay abtigay Abiib wuxuu ahaa bani aadam dadka ugu naxariis badan buu ahaa waa meesha qolin waxba la iskaga qaban karin ilaahay waxaan ka baryayaa waxa la yiri Allahumma in kana hadhihi al-maytu dayfan li fa akramtu fa huwa dayf yakun ilaahu haduu meydkaasi maanta marsi ahaan la ilaahu waan karaamin laha ilaahu wada akram al-mukramin ilaahu karaamin Abiib sidaas fooyinka badan ee laga soo sheegay qof labo hayo leefal walba isagu deelada abuu ahaa maanta laakiin wuxuu naga mudan yahay duco ilaahay ha u naxariisto naxariista jannana Allah ka waraabiyo Xaaji Jibriil maanta marka ilka la dhigay nin kastaba waan isku daba jirnaa ilaahay naxariis janna ugu ballan qaado hortoon u ducaynaa ehel iyo qoyskii iyo imkanaas qaraabada ka baxayna ilaahay samiriyay maana ka siiyo waxaan u dirayaa tacsi dhammaan bulshada Soomaaliland guud ahaan uu ka baxay marxuumku gaar ahaan bulshada gobolka Awdal iyo qaraabadii ehelkii asxaabtii samiriyayban ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay isagana uu naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo su'aasha qabrigana uu waasiciyo nuuro cimrada intaas ay noogu filanoo qof kasta halkaas ku dambeynaya
inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baanu leenahay runtii waa geeri naxdin leh laakiin cid hor joogsan karta wakhtiga ma jirto runtii wuxuu ahaa addoon aad u wanaagsan oo nolosha qaybaheeda kala duwan waddanka iyo dibaddiisaba wax badan ka soo qaatay waxaan halka taxsi uga dirayaa ehelada iyo asxaabta gobolka awdal jamhuuriyadda somalilan marxuum abiib jibriil oo ku geeriyooday magaalada boorame maanta ayaan intaaba taxsi uga diraya marxuum abiib jibriil nuur axmed allah u naxariisto eheladiisii iyo qoyskiisii iyo carruurtiisii iyo asxaabtiisiina samir iyo imaan allah ka siiyo dhammaanteenba samir iyo imaan allah inaga siiyo walaalkeen nin mudakar u ahaa maanta aaska halkaan joognaa waa xaaji abiib jibriil nuur axmed naxariis janna allah ka waraabiyo luxudka allah u nuuro tarakadii ehelku ka tegay samir iyo imaan allah ka siiyo dhammaan qaranka Soomaaliya ummadda Soomaaliya samir iyo Allah ka siiyo allaha u naxariistay marxuum ganacsade xaaji abiib jibriil nuur waxa uu ku dhashay gudaha magaalada Boorama sanadii 1960kii waxaana uu waxbarashadiisii hoose dhexe ku qaatay gudaha magaalada Boorama isagoo intaasi wixii ka dambeysay u socdaalay dalkaasi Kuwait isagoo halkaasi shaqo ka bilaabay wuxuuna dalka dib ugu soo laabtay sanadii 2007 isagoo gudaha magaalada Boorama ka sameeyay ganacsiyo kala duwan oo ka mid yihiin dhismaha hotel Sow ee gudaha magaalada Boorama marxuumku allaha u naxariistay waxa uu kaga tagay 2 xaas iyo 15 caruura